ajandaha shirka wuxuu ku saabsanaa xaaladda siyaasadda iyo amniga oo madaxweynuhu uu warbixino ka bixiyay xaaladda wasiirka amniga qodobka saddexaad oo ah wasaaradda arrimaha gudaha tabashooyin ka dhashay doorashadii iyo halka ay marayaan tabashooyinkaasi qodobada ajandaha intaas ayay ahaayeen waxaa shir gudoominayay madaxweyne axmed maxamed islaam wuxuuna warbixin dheer ka bixiyay xaaladda siyaasadda iyo amniga warbixinadaas madaxweynuhu bixiyay kadib waxaa dood dheer iyo falanqeyn laga galay qodobada kale ee aan sheegay hoos ku xusan waxaana soo baxay go'aamadan hoos ku qoran qodobka koowaad xariga wasiirka amniga iyo xanibaadda diyaaradaha waxaa loo saaray 7 wasaaradood oo kala ah arrimaha gudaha waxbarashada gaadiidka caafimaadka madaxtooyada warfaafinta dhalinyarada iyo isboortiga 7 wasaaradood ayaa loo xilsaaray xariga wasiirka amniga cabdirashiid iyo arinta iyana dhibaatada ku keentay shacabweynaha Jubbaland ee xanibaadda diyaaradaha oo baaqyadeennadii hore ku jiray qodobka labaad wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka koowaad mudane maxamuud sayid aadan oo ka kooban 11 xubnood ee golaha wasiirada ayaa u baxaya wafdi ku aadaya Jubbaland kuwaas oo ku wargalaya xaaladda amni iyo kuwa nololeedba ee shacabweynaha Jubbaland qodobka saddexaad golaha wasiiradu waxa ay ugu baaqayaan xukuumadda federaalka Soomaaliya inay si degdeg ah u sii daayaan wasiirka amniga ee Jubbaland maadaama ay bishii Abriil ee sanadkan maxkamadda gobolka Banaadir ay ka gaadhay go'aan cafisa waxaana goluhu ku baaqayaa cawaaqib xumada ka dhasha ay dusha saaran doonto xukuumadda federaalka ugu dambeyntii qodobka ugu dambeeya waxa goluhu ammaan u soo jeediyay wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubbaland geedi socodka wanaagsan ee ay ku waday tabashooyinkii ka dhashay doorashooyinkii la soo dhaafay bishii hore intaas ayuu shirki ku dhanaa